bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan akhyaarta awdeega daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay wadahadaan oo kala daawataan page-kan waa 6 bisha shanaad 2026 muuqaal wareedkan intuu socdo hadoo eebayd waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan Somaliland oo sheegtay inay isbahaysi difaac la galiso dawladda Yahuudda ee Israa'iil intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadlan maqaalka leega saaro iska share garay oo geeyay doobaan inay ka ogaadaan macluumaadkan ka dhaxeeya Somaliland oo kalideed sheegatay inay tahay dal gaar ah oo Soomaaliinteeda kalena ka madax banaan waa sida iyadu warka u dhigtay muddo 30 sano iyadu sheeganaysa inay tahay dal madax banaan laakiin aysan jirin Israa'iil ka hor dal imika aqoonsaday Israa'iilna ay tahayba midaan caalamku iyadaba aqoonsanayn oo ah mid falaaga oo geenu goosada saad muuqaalka horta ku maqleeyeen daawadayaal mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland ayaa sheegay in Hargeysa ay diyaar u tahay in Yahuudda Israa'iil ay la shaqayso oo ka hortagta baa la yiri waxa ay ku sheegtay halista ka imaan karta Yemen oo ku wajahan marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Baabul Mandal sida uu baahiyay telefishinka Yahuudda Israa'iil laga leeyahay ee Channel 12 lagu magacaabo mas'uuliyiintan oo Channel 12 hadlay oo magacooda aan la magac dhamin ama la sheegin ayaa sheegay khalkhal kasta oo ku yimaada ammaanka badda Somaliland inuu Somaliland ku riixi karo in ay ballaariso xiriirka ay la leedahay Yahuudda Israa'iil xitaa haddii uu gaaro baa la yiri xeer iskaashi iyo amni ama isbahaysi difaac sida warka loo dhigay sidoo kale waxaa lagu sii sheegay warbixinta carqalad kasta oo ku timaada ammaanka badda waxay Somaliland ku riixi kartaa baa la yiri inay xiriirkeeda Yahuudda Israa'iil ay gaarsiiso heer iskaashi amni ayuu yiri mas'uulka u hadlay ama u waramayay Channel-ka 12 ee laga leeyahay dalkaasi Yahuudda waxa kale oo sheegay in Somaliland ay haatan la shaqaynayso dalal ay ka mid yihiin Mareykanka Imaaraadka Carabta oo xiriir la leh Somaliland danana kale baa la yiri badda laakiin gaar ahaan dekada Berbera isla markaana iskaashi la mid ah ay la yeelan karto ama suurtagal tahay inay la yeelato Yahuudda Israa'iil Somaliland ayaa ku taala waqooyiga Soomaaliya oo ku dhow gacanka Carmeed kana soo horjeeda koonfurta dalkaasi Yemen taas oo siinaysa muhiimad istiraatiiji xilli xiisada badda cas iyo Baabul Mandal ay tahay mid sare u sii kacaysa haddaba muxuu yahay marin biyoodka Baabul Mandal waa marin biyoodkan Baabul Mandal waa mid xasaasi ah Baabul Mandal waa marin biyood oo dhuuban oo isku xira badda cas iyo gacanka Carmeed wuxuuna ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee maraakiibta ganacsiga iyo shidaalka caalamku ay imika isticmaalaan marinkaas ayaa si gaar ah muhiim u noqday kadib dagaalada khaliijka ee Yahuudda Israa'iil iyo Mareykanka iyo Iran oo gaar ah ay isku qaadeen kadib markii marinbiyoodka Hormuz ay Iran xirtay gaar ahaan kadib xiisadaas oo sare u sii kacaysa gacanka Beeshiyo markii la xiray ayaa Baabul Mandal wuxuu noqday mid toos u shaqaynaya sida la sheegay warbixinta ayaa waxa lagu sheegay xirnaanta ama khalkhalka Hormuz ayaa sii kordhinaya muhiimadda Baabul Mandal iyadoo Saudi Arabia ay si weyn ugu tiirsan tahay ama ay dhuumaha shidaalka ee u dhow aaga si ay u dhoofiso shidaalkeeda waa sida warka loo dhigay saaxiibayaal dhanka kale ciidamada Xuutiyiinta Yemen ee ay taageerto Iran ayaa hore u sheegay in maraakiibta laga leeyahay Israa'iil iyo Mareykanka iyagoo sheegay in aysan halkaas Mareykanka ayna jawaab ay ka bixinayaan ilaa iyo Gaza dagaalka ay ka joojinayso Washington iyo Tel Aviv ay ku wada